idaacadaha ama youtubeyada hadduu alla idmaayo dadkan saan u caawino oo dadka iswaayey isku raadiyo marka alle khayr allah isii hoos fiican haysan kuwa dadka isku diraayo iyo fadeexooyinka kuwa baafina idaacadahaas baafiyo ama youtubeyadaas laga baafiyo waa ka sharaf badantihiin allah idinka raameeyo inaad dad islaama oo soomaaliyeed oo isdalay oo wada dhashay oo wax walba isku ah inaad isku raadisiin wax qiimo badan waaye ajri xasanaad wixii leedahay allah idin siiyo waana ku mahadsantihiin. assalaamu calaykum walaal ku soo dhowow radio bandiiradley soo dhoweyn kadib magacaaga iyo meesha aad ku sugan tahay. calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa dhowahay walaal magacaygu waxaa la yidhaahdaa cabdirasaaq cali ciise cali waxaan deganahay dalka Sweden waxaan ka deganahay magaalo la yidhaahdo Catherine Holm. cabdirasaaq ma garanaysaa fartuun Saleemaan Xirsi haddaad si garanaysid maxaad isku tihiin? fartuun Saleemaan Xirsi Saleemaan Garaar waa garanay waa gabadhayda abti baan u ahay walaashayda iga yareen ayaa dhashay Maryam Cali Ciise gabaran dhihi jiro aniga la dhalato igu baqaa weli ayaa dhashay ana abtigeedana. fartuun waxa ay inoo sheegtay in muddo 20 sano ah inaan is arkin maxay ku dhacday in muddo intaasi la eg aadan xiriirin gabadhaada? fartuun 20 sano way ku dhowdahay 20 adigu iska dheh 20 kan iska dheh xiriirkaasi 20 sano inaan xiriirin way jirtaa oo xiriir ama yeelan aniga ayada way jirtaa arrimo farsamo dhexdeena ah ayayna ahayd arrinkaas. fartuun sidoo kaleeto waxa ay baafinaysay hooyadeed Maryam Cali Ciise oo ay sheegtay in aysan is arkin muddo 35 sano ah. halkee ayaa kuugu wardambeysay walaasha Maryam? Cali Ciise fartuun ay sheegaysa muddo ku dhow oo ma aanu arag mana ismaqal mana is arag. Sweden markaan imid 2007 December 24 ilaa 6 maqaare markaan imid ayaa February 2008 bishii February oo 4 joogto ayaa gabar walaashay oo ugu aabaa la yiraahdo aniga iga weyn oo Axmed Cali Ciise la yiraahdo magaalada caasimadda degan Sweden ayaa telefoon lagala soo xiriiray oo la yaqaano ay qaraabada ah oo dalka Talyaaniga degan ayaa la soo xiriiray waxayna u soo sheegeen walaasheen Maryam Cali Ciise inay dhimatay. qolka kaaman ku jiray walaasheen ay la soo xiriirtay waxay tiri wariyaa cabdiyo waxaa la yiri saasa la yiri Maryam dhimatay eegow waxaan ku yiri walaalay adaa sharci leh dhaqdhaqaaq shariica ama sharci mali dukumeenti aan ku dhaqdhaqaaqana mali أطلعوا الدوكيمنت الملهي عبدو الله إدمايا ماشاس بالكم بحمر بالحميدي إن شاء الله عاصم وهي تلقوا أنت يكون علينا اسمين سنين يعني يخليه لسه حديث استدح مرات عمل أنت اسمين هلو ما أنت أفضل هذه السنة وهي تري أدرس كي مجاله إياه يصدر وصاب حياة إن شاء الله عاصم لي قبل مركب Maryam Cali Ciise fartuun hooyadeed waaye annagana walaashay waaye Maryam Cali Ciise way dhimatay sabir iimaan allah ka siiyo dhammaan allah naga wada siiyo horeyna warkaan waa ugu soo sheegay fartuun. allah u naxariisto hooyo Maryam dhammaan qaraabada samir iyo iimaan allah idinka siiyo. dhanka kale cabdirasaaq fartuun waxay noo sheegtay in aabaheed oo lagu magacaabo Saleemaan Xirsi Garaaro aysan arkin oo ay kala tageen hooyadeed iyada oo caloosha ku jirta. maxaad warbixin ah oo aad naga siin kartaa meesha uu ku dambeeyay ninkaasi? leeyahay 39 iyo 40 inta u dhaxaysa ayaa soo keen dambeysay gabadha laga fudiyay markaas dacwad laga tagtay markaas oo asaga soo fahmiyay kadib fartuuna
إلا أنت أسوأه وعلى جمعين بعدين إسويدا دي إسكام أنا كنت جرا محمد بالله بل إنا بس عيارتوي هران سلاح الدنيا يكون بدحك إن هذه أصلا إسماعيل عيارتوي عيار جبتوها وحاجاتها في إسماعيل يريد رسول عيار من شيء فنان هذه قبلتها وكا عيارتوي دي وش ملاك الدقنا في هذه مكاسات magacii wixii aan siiyey wixii yaqaanaan salaamagarada inuu diray waxa ninkii soo arko magaalada degan iyo adreeskiisa internet-kiisa inuu soo diro fariintana iga gaabsay hayla soo xiriira lambar gaarsiiya laba kun iyo todobadii ilaa iyo maanta kama aana caadisin anigoo maanta hadda nin xanuunsan muddo badan dhowr iyo toban sano anaa xanuunsan ciyaal oo sariir ku abuuran leeyahay مرة مسجد كان تجاه مركز قال من الدنيا سجوا شو يا أبو دمبيسي اسم تاخا يا المركز اللي يقال اللي جاي على توصل على جزء مني قالوا سليمان سليمان قلال فرتون أبين ورضوا أبو شيء أنت اسمعناك أنا أول حتى أنا ولي وين دمت أنا واي وقص منها وقص منها قبل في والله أقول إلهي يقولكم بإنا سأليو ما أنت هدي الإيسا الصيبة الدرس كيسا يا أمتلنا كي ذكرية أنا يا أنا إنا لا أفكر بها ليقبطه ترين كسراعه وأن سأليو منتقو وأيضا أن لسه حليليو وأكو أصبره أقول لي قبل ياي ما أقول عميق أكو أصبره ما يقبل لي سياشة بهند وين يحبها عندي إلهي إذنه دوس الله قدر هذا ما الله قدر يعني ما كما لكن لذلك سواء وذي خرج وذي إلا عندي حتى لو أولا عندي إلهي يقدر لي والنصر الإنساني إن شاء الله gabadha aabaheed meel uu ku wardambeeyay ama magaalo uu joogo oo lagu sheegay ma jirtaa iyo mar waxa lagu sheegay Norway mar waxa lagu sheegay meesha Denmark degan gabar aniga adeerkay aabahay la dhashay ayaa degan iyo dad kale macruuf aan nahay oo ka adeegay dadka aan ka adeejiya ilaa hadda meel lagu soo sheegay Norway marka hore waxa la yiri Norway degan يا شيخ حرقفنا wiil ciyaartooy oo yiri Norway degan marka Facebook ku kulan hadda Facebook-kiisa waxay kadib hadana waxa la yiri Denmark algu arkay marka wax cad ma laakiin labadaas dal ayaa lagu sheegay labadii dalba waa ku taagan insha Allah way la soo helaan oo aan heliyaa akhbaarta adiga Soomaaliya goormaad ka baxday oo aad gashay Sweden December after 19 ugu dambayn Cabdirasaaq maxaad u soo jeedin lahayd dadka sidaas oo kaleeto u kala luma oo muddo aan ishelinin sida idinka oo kaleeto leeyahay idaacadaha ama YouTube-yada hadduu alle idmaayo dadka saan u caawino dadka iswaayay isku raadiyo marka alle khayr isbiyo horti aan haysan kuwa dadka isku diraayo iyo fariiqooyinka kuwa baafira idaacadahaas baafiyo ama YouTube-yada laga baafiyo waa ka shaqo badantiin Allah idin karaameeyo إن الدين الإسلام أو الصوماليين أو إسرائيل أو ولا شيء أو وحول بسوء إن الإسكوت هذه شيء وحقي مبلغ أجري حسنات وحلا الله ينسيه وأنا كنا سنتين وحنا لي الدرس كلام غنا وحنا لي وهذا وين بدرته إنه هو حلف ولا إسكسا إلى كونتاكت حبيب نص ميس هذه شيء حبيب سيدات كل سنة اللي نفكر